soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada asxaabtaan la gaarayaa hambaliyaan rabnaa inaan niraahno dhowr barnaamij baan haynaa oo ka hadli rabnaa marka asxaabtaan la yar gaarayaa isku yar qaybiya waxaan rabnaa inaanu hambaliyo niraahno guul inaan niraahno waa guul ummadda Soomaaliyeed waa guul ummadda Soomaaliyeed ah waxa weeye wax walba aan noo soo mataqaanaa ifaya in dalkii uu hagaagayo mugdigii uu ka soo baxayo waxa weeye in yar baanu rabnaa inaanu isyar tusno isla markaana aanu isku bogaadino soo dhawaada walaalayaal yar qaybiya waa hambaliyo weeye waxaan meeshan ku hayaa oo kale fariin oo Somaliland oo ay soo dirayso qowmiyadaas ee mataqaanaa mudulood ee magaalada Muqdisho iyo haddii ilaahay ku roon yahay inaanu niraahno hambaliyo mudulood iyo mideynta Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaanu mataqaanaa ugaaskan ee heer diini ama heer sade dee nin dambiila weeyaan inaan Jubbaland niraahno ninka kan waa in xeerka la mariyaa kolba goobtu joogan ummadda Soomaaliyeed oo midoob rabtaa nimanka noocaas oo kala waa in xeerka la mariyaa waa ninkan dad buu handiday waanu ka hadli doonaa oday wadaadka ahaa ee internationalka ahaa ee meel walba tagayay waxaan arkay odaygii oo dhunti gooday oo inkaar nagu ridaya wadaadka waxaan rabnaa inaan ku codsano inuu ummadda Soomaaliyeed u duceeyo isagoo si caaman ah intuu media u soo galo sidoo haddaba uu media u soo galay uu inkaar xun nagu daba dhigay dhinta ilaa iyo geeri odaygana is maqashiinayna marka waxaan dhammaanteen rabnaa inaan sheekhow warsaanka ma filanaynin de Soomaali weligeed bay diriri jirtay haddana heshin jirtay inaad inkaar meeshis nala gaadhid ma mudna Soomaaliye waxaan rabnaa inaan niraahno niyahow bal duca nala gaadh odaygaas isaga ah sida ugu dhaqsaha badan leh marka walaalayga yar qaybiya anagana saaxiibaday baan rabaa inaan u kala daadiyo waxa weeyaan mid kalena waxa weeye waxaan rabaa inaan si caam ah shacabka kan ee meelahan iskaga quudaya indhacadeynaya dee wabarkaygii waxa weeye gabagabadii shirka sida yar u hadlay quruxda badan ayaan rabaa inaan shacabkayga la yar wadaago in yar inta aanan markaa fursad u helin ama aanan dhegeysanin marka yar qaybiya walaalayaal wax yar ayaanu isku yar bayaaninaynaa iyo dee nin dhalinyaro ah oo qaylin jiray oo caan ah waa la yaqaanaa waa qof la yaqaano assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalahii Soomaaliyeed dhammaan ummadda Soomaaliyeed adduunyadan dacaladeeda meel walba aad ka joogtid waxaan ku leeyahay salaan kashkii laabta ka soo booday ee martaa kaaga soo tuuraya walaalow ummadda Soomaaliyeed guul ayaa noo dhalatay waxaanu rabnaa hambaliyadu maaha kaliya mudulood hambaliyadu waa shacabka Soomaaliyeed waayo waxa cadaynaysa xitaa waqooyigii ayaa guuxaya macnaha waxa weeye shacabkii Soomaaliyeed ayaa isku soo udgoonkoodii isku soo noqon rabaan marba haddii ay waqooyigiiba ay hambalyo ka soo dirayaan meeshaan ay leeyihiin waryaadeen iska qabta ay u gabyayaan waxaa noo soo uraysa talabaad waxa shacabka Soomaaliyeed maanta meel walba aad joogtaan sida aad arkayseen baa ka daacada reerka mudulood annagu shacabkoodii baanu ahayn oo weliba dee xeer baanu la nimin laakiin nimanku waxa weeye waa niman dhaqankii ah waa niman hadda ummadda Soomaaliyeed sidii lagu magacaabay sidii lagu magacaabay ay yihiin ayay haddana ay idin dhabeeyeen albaabku waa u furnaa waa si arkayseen nini kama maqnayn laba mooyaane laba madaxweyne iga maqnaa shirkaas waa Soomaali baa isku timid iyo waqooyiga iga maqnaa waqooyiguna inay qaar fadhiyeen baa laga yaabaa qaari ay fadhiyeen waxa iga maqnaa dee qolooyinkaana qaar waa ka fadhiyeen ama ma jarteena noqdaan waa la fadhiyey meesha albaabku waa furnaa reerkaasi waxay meesha u fadhiisteen ma aha inay iyagu ay rooti raadsanayaane ummaddan Soomaaliyeed inay mideeyaan waa dad gogashii Soomaaliyeed weligoodba lagu magacaabay wey ninna lama weydiinayo aad iyo aad ayaan ugu mahadinaynaa haddaanu nahay dhashii ee qurbaha ku nooleed sidan quruxda badan leh ee loo bilaabay ee degdega ah haddana sida qurux badan leh ee albaabada loo xiray waxa weeyaan waxaan rabnaa inaan niraahno inaan in yar aan horta intaanan aan muduloodkayga aan sii dhexgelin oo iyo mataqaanaa iyo dee mudulood maahe meeshu waxay ka socday mudulood maahe mideynta Soomaaliyeed ayaa ka socotay iyo gardarra in hangool loo midaysto
ma fahanti wax kale ma meeshaasi saan anagu aragnay hol aad iyo aad u qurux badan baa ka dhacay reerkaasna wax waaye holo badan ayaa u dambeeya oo ay qabsanayaan laakiin shacabka Soomaaliyeed ayaa ka weyn tooda tan aan ka arkayno dadkan mudulood waana mid raba inay horta ummadda Soomaaliyeed isku soo laabato oo ay iimaan wada yeeshaan ayay kadib iyagu aan malay laakiin tani waxa ay wali ka dhigan tahay shacabkii Soomaaliyeed ayaa taayada ka horeysay horta intaan isku nimaano aan isku afgarano inaan shacabkii Soomaali sheekasaas oo kala bay u ekeen ya waayo waxa idin muujinaya sida shirarka goobtaas la joogay sida mikrofoonka loo qaybsanayay ya sida qurux badan leh oo dawaa meesha uga dhawaaji ya rijaal rag dhalay waxa weeye eeg daawada waxa weeye adeerayaal wala nagu marabno maaha inaanu idin tashanayno ama aanu tashanayno Soomaali ama loo baya Soomaali oo dhan baa loo wada tashanaya sideen nabad u soo aruurina sideen Soomaalida iskugu keenna weeye gogoshaasi waxa ka muuqatay walaalayaal waxa weeye sidee baan Soomaalidii iyo gardaradan meesha ka socota ee qaabta daran leh ee la aaminay 4 sanadood sideen waxaan iskaga qabanaa ayay taagan tahay taa waxa weeyaan iyadoo gabagaba wabarkay wacdi waayo waa joog waa taagan yahay ma hu fadhiya waa u taagan yahay waa marag subax u soo kaca waa u jiiftaa waa soo goobtiisi waay ma fahantay marka waxa weeye isagu sida uu shirkaas uga yar hadlay iyo inta yare ee mataqaana ugu mamaay ayaa gooniya laakiin waxaan rabaa inaan marka ugu horeysa mudulood iyo shacabkii Soomaaliyeed oo dhan ee goobtaas ku dhamaa hambalyada iyo bogaadinta ee mataqaana nimankii ee Somaliland ayaan rabaa inaan in yar idin maqashiyo haday ii suurtoodo waay ya waa haday ii suurtoodo waan fiirinaynaa waxa weeyaan away nimankii Waqooyiga ahaa waa kana idin maqashiinaya waxa weeyaan hambalyo weyn bay u soo dirayaan hambalyo aad iyo aad u weyn iyo bogaadin ayay u soo dirayaan marka waxa weeyaan nimanka Waqooyiga waxa weeye waa walaalo oo Soomaaliyeed oo la dulmiyay sida dulumka hadda ay banaadir iyo inta Soomaaliyeed ee maanta la kala geeyay 4 sano saa loo kala fogay dulum cad waayo waa un iyagii waayo kuwaasna ka xamishiyay oo ka xanaajiyay waa iyagii oo shaati kale noo soo gagashtay waayo waa wax cad oo sugan waayo ummadda Soomaaliyeed dhanna way wada ogtahay maanta way ka shifan yihiin ma fahant siday damcayeenayna mar hore la cadeeyay miiska la saaray miiska siday damcayeen miiska la saaray marka waxa weeye wabarkeeguna waa agdi dhigaya hadal buu agdi dhigaya hadii Ilaahay ku rooyayna waxa weeyaan waxaan rabaa inaan bal horta hambalyada aan ku hormaro hambalyadaas ee mataqaana inaan ku hormaraba waxa weeye waa kana wasma qashinina ade abtiyaashay daawada buur dhoob loogama taliye banaadir baa looga taliyaa markaanu banaadir wada hadlaynana waanu garanaynaa laakiin qolada reer banaadir waxaan leeyahay dhaaliya sidii gabayle waxba loo dhalminayaa waar waxaan idin leeyahay nin dirbaaxa buuree dugsaday dhaqayadeed maaliya dhashaadaad sugtaa xaajadaad dowlataa abid daragiyo marbay kaa yihiin dhaqash xaaraan war aaranka yar ee faqashta waa faqashka waa aarankeedii bahalahana waxaa yidhi bahalka weyn iyo bahalka yar ka yar baa nijaas badan war bahalka yar iska qabta intay goor tahay ee hadhow aydaan shallaayin ee meela ka soo qabataan aydaan garan waayin banaadir wake up banaadirey toos waxaa u baahan tihiin annagana weydiiya shaqada idinta alla qabsada wasalaamu calaykum waraxmatullahi waxa weeye fariintaasi waa fariintii ee walaalaha iyaga ee mataqaanaa Jamhuuriyadda ee Somaliland ya waa nin siyaasi weeyaan waxa weeye ninkaasi Cismaan Awrliqe ayaa la yiraahdaa waa nin siyaasi weeyaan wallahi billahi wuxuu matalayaa waa shacabkii Somaliland waayo inta isaga ka badan ee aan waynaa badan ma fahantaa hambalyo meesha ka ridaya shirkaas meesha ka dhacay ee ummadda Soomaaliyeed waana noo digayaano digniintani anagu ay walbaan ogeyni laakiin kolba meel baa loo maray marka waxa weeyaan kaasi wuxuu ahaa hambalyadii ee dhinaca nooga timiday iyo bogaadin oo markaa iyo baraarujinba ya
marka waxaan leenahay waa maasantiin baan leenahay hambalya ayaan leenahay inta Soomaaliyeed ee aad iyo aad ugu faraxsan shirka maanta sida quruxda badan leh yaa u soo xirmay oo u soo gabagaboobay waxa weeye fariinta uu marka wabarkeegu u dul dhigayna waxa weeye waa mid inaan aan maqashiino loo baahan weeye dadka kan iyaga marka wabarkeegu naftiisu waxa weeyaan waxay ku jirtaa waaka in la soo dhawro in la soo dhaweeyo in la soo xurmeeyo walaalnimada ku jirta iyo islaamnimada aniga inaan qof ku xadgudubno ma rabno niman hadda maalin dhaweeto badan oo hotel ay ugu cimada ilaa 30 gaaraya oo Soomaali ka kooban waxay yiraahdeen wabarow adiga cali mahad dagaal cilaamisay aniga cali mahad dagaal san ku cilaamana dhaanay beerta ayaa la rugo waaya haddaan wax sheegna ma nagu celaysay asaan leediin wariya ilaahay ka cabsada aniga horkeedaysa wariya ilaahay ka cabsada ma ya dagaal cilaamisay cali la qorabo sheegay adiguna dheydkii baa sheegtay dawladda marka dawladda dheydkeeda in la sheego waa wax muhiim ilaa kuwa ka horeeyay asuguba sheegi jiray ninka jooga ma marka dheyd la sheego waxba dhibi ma waxa daran dhaqa xumada kale in dheydka la sheego waa loo baahan yahay xasan sheekh dawladda 4 sano ku darsaa qabadaan oo dadana qaraabadiisa ee qaba kale la jirtana waa la helay laakiin dheydka waa in la ilaasho qofka hadii la doorto ilaa 60 kaaninka kursigan ku fadhiisana waa ka tagayna waxaan rabnaa Soomaaliya inay nagu dayato oo si sharaf loogu dayato kursiga 4 sano haday joogto oo waxay ka heli rabto sharaf iyo cise ay ka heshay inay ka wareegto dadnimada saasay ku jirtaa walaalayaal waxaan rabaa taas marka waa taas madaxtooyada iyo muduloodna waa isku shirbanada oo 4 shirba isdhaafsadeen 4 shiribna inaan sheegaan rabaa waxay la yiri mudulood waxa uu yiri dheydkaaga waa dhamaayay dhabtaad ku fadhiiska dib ya madaxtooyadana waxay leedahay ninkii dalabiya dhama duceeyda waxa uu ninkii dalabiya dhama dalabiya ninkii dhama duceeyda wax ka dhibime wax yar oo rabaa waa fahmi kartiya duceeyda wax ka dhibime waxa uu rimadulood isdeegidaada waa arkay ama isku dhima rabnaa isdeegidaada waa arkay ama isku dhima rabnaa waxa uu haddaan waxaan raba dhacayn in la isku dhinta xaydhibe walaalayaal marka warkeenaan badeema raba shirku maanta waa gabagabo shirkaan waa shir guuleed waxaan rabnaa dawladda meesha joogto inaan ku xadgudubna ma rabno oo waa dawladdahay haddana inaan tala ku leenaho waxna ka leexi karno waxna ka dhimi karto waa wax muhiim qofka haddii lagu nool yahay gasadeera oo gurigeeda dadka guriga ijaarka kaaga jira hadday kaaga dheelayaan war guriga ijaarkiisa waxa soo qurxoona soo degta maantana waa jajabay iga bax wala laha qof walbana way ogtahay marka Soomaaliyeed wax kala qarsan lama rabe in runta la sheegaa la rabaa inaan qof ku xadgudubna ma rabo laakiin inaan runta sheegno waa rabnaa soo dhawaada shirkaan waa shir guuleed waa shir mudulood waa shir cisi iyo sharaf ku dhamaaday anoo xusaayo dadka ka soo qayb gala way mahadsan yihiin aadaan u mahadsantii waa mahadsantii shukran aad iyo aad u mahadsantahay wabar socdaal raage madaxa alla raaji walaalayaal shacabka Soomaaliyeed waa sidaa weeye ee mataqaanaa ee midyaha ee adduunweynihii iyo Soomaalidii ay ula hadlayaan walaalahaygii mudulood waxa weeyaan walaalahayga mudulood waa walaalihii Soomaaliyeed waa walaalihii gogasha Soomaaliyeed waa walaalihii ee ku caanbaxay deris wanaaga walaalayaal waa mid xaqiiq ah ninna ma beenin karo arrintaasi waa mid soo jireen oo taariikhda ah walaalayaal welina waa kuwaasoo sida aad arkaysiin ayaa ka daacada marka dhammaanteen waxa weeye ilaahay baanu u baryaynaa nimanka kan ee dowgii gafay ya in ay bal unsi yaro qurux badan ay isku dhiibaan wixii loo cafin karo waa loo cafiyaa waxaan la cafin karayna waxa waaye hadda sharciga ninna kama weyna ya xeer baa jira xeerkay marayaan intaas inayna wax ku darin ayaanu ugu ducaynaynaa hadday ku daraanna waa maqlayaan fariintii si fiican ay u maqlayaan ya waxa waaye heerwaqooyiga xitaa waa ujeedaan diyaarana hudhooya waa ujeedaan dhagaha fur shariif xamsow waa dhilqihiyow waxaan rabaa inaan idiraahdo nimayow gadaal isku qabta wanaagga wax ka fiican ma laha dadkan Soomaali diid maaha dadkan waxa waaye gogasha siduu u dhigay ayuu wali ugu yaalaa dadkiina mahna ee ku soo wada aruure ee wada mataqaana dulum raadiska ahaa intii dulumka maskaxdooda lagu soo qafilo iskaga laabo dulum looma baahna
intii inay noolaato oo soomaalinimo inay ku noolaato rabtana ciddaan ciddii dadka diida maaha welcome rootigaaga ilaaha haya yaa arrisqa huwa bayna alqadamayn laakiin nabad inaad ku nooshahay ood respectiisid waaye mahad ka soo toostay cidaa inta kaa jirta cidaa gadaashaada jirta cidaa hortaada joogta cidaa jidka kaaga horeysa yaa cidaa mataqaanaa mahad gelaysid iskale oo aad badarka cunaysa wax oo dhanba respect ay u baahan tahay waka haddiiba intaa la helo ummadii soomaaliyeed waa midii loo baahnaa in lagu wada midoobo ayaan rabnaa inaan iraahno marka waxaan rabnaa dowladdan inaan fariin weyn aan halkaa uga dirno walaalle waa maqlaysaa shacabkii soomaaliyeed iyo gobolladii oo dhan mid ka maqnaa malaha dhashoodii ayaa jooga hadday madaxdii labada ka maqan yihiin waa maqlaysaa dadkaasi waa dadkii ee dhaqameedka ahaa iyagoo ku dhahaya anaga gogasheeda waxa waaye mid furan waayo waxaan qarqarinayna meeshaan qurnaa ku jira annaga dadkaasaan nahay ee walba haddaan wax qarihaya gogashayda ayaad iga soo degi lahayn waaye sheekada maaha ka socota marka walaalahaygan waxaan rabaa respect in la siiyo weeye oo aan mataqaanaa laisku xadgudbin dadka ee siyaasadii sida khaladka u fahmay sida imika duqbilow oo kale walaalkay waxaan rabaa waa wiil dhallinyaraa waan arkayay inuu xiiqayay waan arkayay in ilaa ay cirka la gaarsiiyey oo dhowr samo uu soo taabtay oo gurigii villa soomaaliya la dhex joojiyey waan arkayay in la cagajugleeyey oo wax ma fahantay wixii doontaba mar la eryey mar la soo ceshto waniyow markan mid baanu kaala hadli rabnaa walaalow haddaa ilaahay taqaanid yar xisho ha caayin annagu ma geyno waxaan ka wadaa ma u quurno haddaanu nahay dhashii soomaaliyeed yaa gabar oo ogaadeen inaan afka ku furno nin waxaa tahay oo ogaadeen ah nin reer ogaadeen qaba caruur ogaadeen qaba hablo qaba niyow miyayna ceeb kugu ahayn hunguriga meeshaa kaa galay soo ceeb maaha inaan ku yidhahdaan rabaa walaalow duqbilow in yar xisho dadkan waa dadkaad beri u imaan doontid dadkan waa dadkaad beri la ceeshaysid waa dadka aad enetrega jidka kaaga halaabaya midka kale ee ku kaalmeynaya uu nin mudulooda u yahay waryaa niyow in yar xisho dumarka laguma fududaade duqbilow waxaan kaala talinayaa walaalow hablo badan baa kaa xanuunsaday oo aad si qaab daran ugu dhaqmatay hablahaasi waxay dhib ku geysteen malaha reerkaana cid ay dhib u geysteen malaha waa ogtahay duqbilow waad ku raaxaysanaysa magaalada ayaa maalinta kugu dambeysana adaaba igaga dambeeyeyba yaa ciza wa sharaf gurigoodii waaye waxaad dhex soo socotid aryaa i maqal waa khaldan tahay waxaad yeelay nimankan niman oo filinkoodii gubto waaye haddaad iyaga daraaddood u samaynaysidna waxaad leedahay nio wax kaloon sheega ii sheega aniga dumar caayi ma kare xisho gabdhaa kula dhashay ayaan rabaa duqbilow walaalow halkaas ayaanu codsi kaaga soo diraynaa haddaanu dhishii muduloodnahay haddaanu nahay dhashii soomaaliyeed ceeb bay kugu tahay inaad hablo maagto adoo hunguri ama adeeg lagu adeejinayo si aad hunguri u heshid annagu saa doontidba waxaaga u hele laakiin dumar lama caayo ceeb weyn weeye ceeb ka xisho ka raaligeli waa gabadhaadii war waa naagtaadii war waa hooyada war xisho duqbilowow mar dambe walaalow waa lagaa xanuunsaday hablo badan baa qaylinaya cirkiya dhulka ayay wallaahi marayaan niyow ma qabato inaad hooyada iyo walaasha iyo gabdhahaaga aad cay meel la fadhiisato ama hungurigu kaaga galo waa ceeb weyn weeye waa hooyada waa walaasha waa naagtaada waa gabdhahaagii ayaad caynaysaa wayna i maqlayaan intoodaba isku xishoo duqbilow meel kale waxaa kaa galaan marka dumarka hanaga caayin annagu dumarkaygii weeye kuwa hasta hoosta kaa jiifa kuwa aad ka dhashay kuwa ee mataqaanaa ku dhalay intaba waa dumarkaygii cayna nagama geeyaan mana naga mudna inaan hablahaygii dumarkayga cayno marka waxaan codsi weyn kaaga soo dirayaa meesha erey oo khalada lagu dhahayo male ninku maagayo male ninkuu diglaynayo malaha damiirkaaga ayaan la hadlaynaa damiirkaaga ayaan rabnaa inaan hagaajino istoosi ayaan rabaa inaan ku iraa duqbilow igana raalloho walaalkaygiyo hoolahaagaana shuqul kumaliy laakiin haddaaba dumar usoo dhigato weliba aad annagiina dhex gashay waa ceeb wey annagii maahe ummadda gabdhahayga soomaaliyeed waa gabdha qaaliya cayma u qalmaan ayaan ku rabaa inaan ku idhaahdo waxay doonaan bahaade xisho halkaasaan uga baxay duqbilow waxaan rabnaa inaan iyar ismaqashiino hadalkaygu maanta waa gobaabin iyo waxay ahayd hambalyo yaa iyo fariintaas ee waqooyiga noo soo diray waxaan inta ku hayaa sheekh aad iyo aad haddaanu soomaalinahay laakiin waxaan dhidhaminaa inuu annaga noo jeedo wuxuu u jeedaa
reerahan hadda shirbaaye iyo intii hoos timaada ayuu u jeedaa haddaad fiirsin laakiin odaygu waa oday international u ahaa si ay wax ka noqoto ma raba laakiin inaan hadda ogaadaan rabaa si ay wax ka noqoto waxay ahayd waa inuu meeshan uu dib isku qabtaa waxaan rabnaa in shacabkayga bal inta aanan maqalna aanu maqashiinaa wadaadkaasi waa sheekh idris waaye sheekh idris what's wrong maxaa dhacay sidee wax u dhaceen war waa maxay cadaawaha intaa leeg فخرك كجرة أو قاعدة كجرة أو ديقة كجرة أو ضاقة كجرة أو نجح كجرة أو مدلعات كجرة أو حسبات كجرة أو عفوات كجرة أو ونيتا هذه هاي الصومالية عملنا فخرك كجرة أو قاعدة كجرة أو ديقة كجرة أو ضاقة كجرة أو نجح كجرة أو مدلعات كجرة أو حسبات كجرة أو عفوات كجرة أو ونيتا شيخ الدريسو سيبان هذا ملك هو ما داون أنا كاقل يستعمل وربلي أي رأي كان وريانه ونيك شيخ الدريسو با سيبان حجرة أذكركي وحبات جرا مقومنا ماهن أدا أنو نهي شعبكي يوروب كنولا wadaad kan meeluhu ka qudqudbeeyaa asan diinan faafina uu leeyahay tanna waa nagu dhigooyaa wadaadkan waa maqlaysiin wuxuu noo reebtay malaha haddaanu shacabkii Soomaaliyeed nahay meeshii la rabay inuu daco uu nagu wado maaha inuu noo yiraahsan noqda dhinta jaba waa cajiib waay waa arrin laga naxo waay marka sheekh idris waxaan ka codsanaynaa inaad duco noogu bedeshid dalku waa hagaagi rabaa haddii aad adigu aad islaheed laakiin dhinac baan u jeedaayo dhinacan kale inkaartan wadaana adiga noo cadeyn doona laakiin waxa weeye ummadan aad mar walbaba aad magaaleynta u tagtid oo muxaadarooyinkaaga dhageysto waa ummadii Soomaaliyeed oo isku wada duuban weeyaan haddaad adigu ay ku kala saaran yihiin sheekh idrisow waxaan rabnaa inaad meesha intaad mar labaad soo istaagtid aad ducadii iyo ujeedada intaas dhigaaga gaarsiiyay inaad shacabka u sheegtid haddaa intaa yeeli weydo waxaan aniguna markan halka kan aan ka iclaaminayaa ilaa Yurub meel walba way maqlaysaan dadka diintow haddaad si fiican wax u meysaan haddaad diinta Ilaahay aad xaq aad taqaanaan wadaadkan uu yahay wadaadkii intuu idin yimaada aad intaasoo mataqaanaa juudi aad u gashaan oo aad u fadhiisataan oo waqti siisaan wadaadku ma qumana ayaan rabaa inaan yiraahdo hadduu is cadeyn waayo waa inuu is cadeeyaa oo wuxuu ka wado waa cadeeyo weeyaan waayo wuu yimid dalka wuxuu yimid markuu ninkani dalka qabsaday ilaa iyo villa Soomaaliya la dhaxgeeyay haddii uu iyaga inuu u heliyo diintiisii ay tustay waxaan rabnaa inaan niraahno annaguna wadaan sunna wal jamaa la yiraahdaa culimo ka waaweyn ayaa adeerayaasha jooga afkaaga toosiso inaan yiraahdaan rabaa waa inuu sida ugu dhaqsaha badan la sheekh Idris intuu meesha soo istaago raali gelin ka bixiya annagu Soomaalidan uu inkaarayo dhan baanu ka kulnay waana u fadhinaa waana kaasa guulbay ku socotaa dalkuna waa hagaagaya ilaahay nama naaro ilaahay nama gubo ilaahay waxaad na tiri ilaahay nama siiyo ayaan ku leenahay adigana kuma inkaareyne ducaan ka sugeynaa ahlu diin baad isku sheegtay qaabkana ma ku tiida ahlu diin saacada la taagan yahay dulum ayaan ka dareemayaa qaabka aad u hadlaysay shucuurta ayaana muujinaysa inuu dulum aad cadeynayso sheekh Idrisow sida ugu dhaqsaa badan hadaad iman propaganda dabadan kula galeynaa meel walba ka qudbeynaysidna waa kugu buuqaynaa sheekh dulum wada tahay oo qabiili ayaan rabaa inaan ku iraado Eritrean baa waliba lagu sheegay ma naqaanaba waxa tahay ma naqaan laakiin meesha u jeedaan garan weynay waxaad yeelaysaa sheekhow haddaad sida ugu dhaqsaha badan leh aad u soo istaag weydid meel walbood maxaadare ka dhigaysid qulub baan ka dhigaynaa you are not welcome waayo diintaadii meel xun bay martay markaan qabiil bay isku bedeshay iyo dad gaara maxaa noo inkaaray shacabkii Soomaaliyeed baan ay ducaanu ka sugeynay haddaan dhulka galnal masaana waa nasiid duuga waaba nidugtay anagoo nool oo ndiyaan qabin oo wali xaalkaygu masturiyay warbal ninka daawada waa sheekh Idris weeye ninka miyaa loo dul qaataa wadaadkan warmaya هاي Soomaaliya عملنا فخرك كجرة أو قاعدة كجرة أو ديقة كجرة أو ضاقة كجرة أو نجح كجرة أو مدلعات كجرة أو حسبات كجرة أو عفوات كجرة أو ونيتا هاي Soomaaliya عملنا فخرك كجرة أو قاعدة كجرة أو ديقة كجرة أو ضاقة كجرة والبنلاف لينكري وركيسو عادي تتكود اللي هي وجدلوا لكن أنا ما يقان لكن وحرمنا هنا نرانو أدير
yurubna koob shaada ma kama cabaysid goob walboo timaadid waa ku qulbaynaa sheekh idriisow qulub ayaan kuula taaganahay waa si degdega inaa inta istaagtid aad dhiiggaa waxaaga inta saacad farkul maxaa lahaa soomaaligii temperaturekiisii intaa waxa gaarsiiyey maxay ahayd aan rabnaa oo weliba na baabi'iyey jid xitaa jidka anagu naga hadlaa moogta weligiina jida yeelinina abaar u dhinta kan u dhinta ariyaa joog dad abaar u dhimanaya manihin ee naga raallaahow culummada iyadaa noo joogto ducana kaama rabna waxaad yeelaysaa haddaadan si ciyoba maahan uga warramin dhashaan mudullood iyo dhashaan hawiye iyo dhashaan soomaaliyeed waaye waxa muxaadarooyinada kaa dhegaysta cid damboo ku dhegaysanaysa malaha ayaa rabaa odaygaas sida ugu dhaqsaha badan le shacabka soomaaliyeed waa inaad qancisaa halkaasaan uga baxaynaa ودعيسنا أنك دد أو الحمد لله وعلى سنة الجماعة ما لهم وضياعية ها ودعيسنا مركا ولا عليك الصوماليين لما أنتم با وحرب إلى الميشن أنا دبا أن هذا الكمركا حاجة أوجبوده جبلان بالرواينا الله دولة جبلان وحنو ملاينيا نن تنبيلة أيام ولي حكونا الوقادين أنا وهذا الشعب كنا وحوي حرب باجرة دولة با قبلات با كدسن قيبتي شرعية هي محكمة أي لا هاي أنه وحنا وباناي إن كان لا محكمة ديو نين كان أنه محكمة أساس دولة هدي عن كيالو ويدو تدنبي إيمان يساق عن كيالنا قبل بوجوجو وقبلنا أساس كينينا نين كان أوتوماتيكلي وهند الدل أيو قاضي يعني قف بو كهند دي إنه كوك السينيو ويسور دو ويذكريا ما فهمتي مركز نين كان نوع عسى ولا ليال وكان إن هور فريستو وحلقة يبصدو لكن ظروفتا أيا كنتي قف كنا ينو وحن جرين إسكندر دعية دمركي حقيقة تمادو دقون لماذا يكمل تاعي أحمد وحن رجينا دولة دوينا يا مقامته أما الدشو أما أو عرره ويدعي ويدعي دولة دي ما باعترافتي مركا هذا أنا ونمانت هنا قبيل إنتان هو بهيو قبيل دبص عضا أما قبيل عن هركعه وانكر هذه يمحوها برنامج كله انكر هذه برنامج كله ما يعنطم يسو حقيقة مركا اللي يلاهدو نكو ودنبيله marka waxaan ka codsanaynaa Jubbaland inaan maqalno maxkamadiisa in la furo waaye oo la dacweeyo weeye ninkaas ay maxkamaddu ay xagga ka bilaabato weeyaan dawlad fiican markay timaadana loo soo gudbiyo oo ma taqaanaa dawladii dhexe lagu wareejiyo kiiska laakiin waxaan codsanaynaa shacabkii baan nahay kiiskan inuu baarid noqdo maaha ninkani waa nin gacan ku dhiigla ah wuxuu dilay ma naqaan laakiinse wuxuu hadda afkiisaan ka haynaa inuu madaxweyne dhan oo official ah oo u dhaaranayo oo inuu kow ka siiyo oo qorsho u dejistay waana la wadoogay ciidamadii la galiyay marka waxaan rabnaa anagu maaha inaad naga baaridisaan waa inay maxkamaddu ay feelkiisa furtaa ay feelashiisa dawlad goboleedyada kale u qaybisaa goobtii lagu arkana gacan lagu dhigo oo sharciga la keeno weey ninka waxaan ka codsanaynaa Jubbaland qaybta ee maxkamadaha ama wasiirka cadaaladda ninkani wuxuu dil u geysan rabay madaxweynihii Jubbaland afkiisu ka cadeynaya waa kan wuu hadlaya waayo sababta aan loo sugayo ninkani waa in xeerka la mariyaa ayaa rabaa inaan waxaan inta raacinayaa dhasha iyo habraha uu ninkani soo habaabiyay walaalayaal dib iskaga laabta inta wanaaga jecelna waxaan u maleynaynaa inaad ninkan ee asaasaqa sida dhaqsaha badan ula hadashaan oo uu si nabada oo qurux badan kulli wuxuu qaban kara male oo uu isdhiibo ma yeeli waaye waxa weeye xaaladdu ma fiicna waayo sida uu wabarkeyga cadeynayo ayay diyaar u yihiin iyagu marka waxay soo wataan dhashiina ku baabaayo dumarkiina hamay roontahay inaad hadda guriyihiina ku laabatiin intaas ayaan walaalahayga Soomaaliyeed uga baxaya guul baanu leenahay ummadda Soomaaliyeed way midoobaysaa ummadda Soomaaliyeed nabadii ayay ka wada caalamaani doonaan walaal Soomaaliyeed oo iskala ehbeysanaya ma jirayso Soomaali waa Soomaali meel walbaan ku noolaan doonaa sida ugu dhaqsaha badan leh 4 sano naga khasaare 4 oo degdeg ah oo shacabka lagu wada mideeyo oo xisbiyadii ay soo baxaan oo halka qabiiladii ay ku baxaan ayaanu wada rajaynaynaa marka walaalayga Soomaaliyeed dhammaantiin ba khayr u sheega
nin nacab ma leh soomaali ma nacbin soomaali nacab ma jiro reerkaa mudulood waa sidaa aad arkaysiin albaabkaa waa furan yahay cid walbaa dhex taagneyd shiribkoodii xitaa waa kaa soomaali oo dhan ujeedadooduna waa iska cadcaddahay mid maaha maanta awowayaashoodii awowayaasheed ayaa noocan u dhaqmayay tii unbay haddana ayay ku dhaqmayeen taa unbaa keentayna in ay 4 sano iyagoo dhashoodii la cunayo iyagoo dhulkoodii lagu dheelayo iyagoo lacagtoodii laga qaadanayo ay fiirinayeen waxaas oo dhanna sharci iyo shuruudaha ee dalku yaala iyo inay nabadi dhacdo ay dowladdan yaree macaan noo dhalatay ayna naga burburin ayaa u sababa marka walaalayga Soomaaliyeedow khayr isku wada sheegno iyaanu isnicin dhinaca fiican ha wada fiirino ma faantay nimanka kan way gabeen hooshoodii waa inay isdhiibaan iyagoon buuq iyo balaayo dhigin dhashayada ay nooga dheelin waa u baahannahay intuu noo ciidameeyay annagaa kala habaysanayna hooshii rag yaqaanaa imaan doona hoosha raggii ummaddan Soomaaliyeed midayn lahaabaa imaan doona waxaad yeelayaa aan rabnaa inaan dhiraano walaalaha iyaga dhammaantiinba ha u wada ducayno ninkan asaasaqay iyo 40 iimaan kale ay gadaal ka fadhida oo ha niraano nimayo isdejiye isxasiliya failure baatihin dadaad maraysaan iyo dadaad boobi kartaan malaha tabartiinu mid oo maaha shacab Soomaaliyeed burburin kara idinka ku halaagmaya shacabka iyo dhalinyarada yaryarka iyo hooyooyinka masaakiinta aad soo khaladeen caruurtooda marka walaalayga Soomaaliyeed dhammaantiinba waa maasantiin isku wada mowqif baan nahay dalka Soomaaliyeed inuu noo hagaaga ayaan u baahanahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh